dhahan hore u soco maasha Allah gabar fiican ayaad tahay saasay dhahan. Magaceedu waa Ruwayda Najiib, waa gabar Soomaaliyeed oo da ahaan jirta 11 sano. Waxa uu Ilaahay siiyay hibo iyo fikir hal abuur oo ganacsi oo aad u qurux badan. Ruwayda ayaa maalin walba u soo shaqo tagta goob ganacsi oo ay leedahay ayeeyadeeda. Goobtaasi ganacsi ayaa lagu iibiyaa agab isugu jira dharka la xirto iyo noocyada kala duwan, alaabaha ka samaysan farshaxanka ee lagu sharaxdo guryaha. Haddaba waa tuma Ruwayda Najiib oo ah gabadha gacanteeda ku samaysa agabkaasi lagu iibiyo halka ay subax walba u soo shaqo tagto iyada iyo ayeeyadeeda. Haddaba aan kala dhaxbaxo mikrofoonka. waan dhawahay magacaygu waa Ruwayda Najiib Xasan Ibraahim, waxaan jiraa 11 sano. Waxay barayadeeda marna hooyadeed. Waxa la ii baray waxa ku familka oo dhan waxay ku jiraan 4 sano iyo dunta ku dhex jira, anina waxa ku dhex jira 3 sano. waa wax shay iska fudud, laakiin dadka markay korka arkaan waxay isdhahayaan shaygan waa adeeg ma adka oo fudud yahay. Waxay dhahan hore u soco maasha Allah gabar fiican ayaad tahay saasay dhahan. Waxaan leeyahay inaan wax baro gabdhaha oo yariiskan, waxaan jeclahay inaan qabistii jimcaha wax baro. waa kana kan waa gacmaha shanfaroodka waa kana kan waa koofi, waa tan boorso waaye, waa kitaabaha quraanka kariimka jaldigan ay u sameynaa, iyo waa kana geedka tiishka waa ka tiish ku dhex jiro, iyo geedkan iyo geedahan miiska iyo geedkan miiska asli kana geed miiska la saarto. waa kana waa dhaga kana ana sameystay koofidiis kana waxaa loo talgalay dhaxanta. Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.